magacayga waa Raxma Ali Maxamed waxaan dhigtaa dugsiga 20 December waxaan ku soo biiray 5 bilood ka hor waxaan marayaa heerka koowaad ee dugsiga dadkaasi marka waa dad Soomaaliyeed oo u baahanaa una baahan xaqna u lahaa in wax la baro marka bulshada lagu soo daray 17 jir ah oo inuu qori qaato ama uu laami ka sheekeeyo aan wax kale garanaynin oo waxbarasho loo furay oo bulshadiisii hadda ku soo biiray rajayna mustaqbalka inuu jaamacad galo oo mas'uul noqdo oo maxaan ku dhahay dhar fiican xidho oo xafiis ka shaqeeyo wax la heli kara ma aha markii hadda la dhaho trikooba la sameeyna gabdhaha wiilasha badan oo waalidiinta inta badan wiilasha waxbarashada u soo diraan gabadhu waxay dhahan gabar waxbaratay jika u dambeysay gabadha ha joogto fursadda marka waxay u noqotay gabadhii iyadoo guriga ka shaqeynayso in labadan saacadood ama saddexdan saacadood ay ka faa'iideysan karto galinka hore waan shaqeystaa oo waxaan hooyo ka caawiyaa shaaha laamiga ku gadnaa galinka dambana waxaan ka faa'iideystaa fursadda oo waxbarashada ay noo fudiyeen hay'adda mardhow maamulku wuxuu noo qeybiyay buugaag oo hay'adda noo keentay oo ah maadada afka Soomaaliga, Carabiga iyo xisaabta. After the introduction of the curriculum, there was significant enrollment in the ABE, and we did massive awareness, telling the school management team, the community members, the target parents that the ABE is not informal, it is formal. When the learner will finish level 4, he is equivalent when as if he has finished level like grade 8, then he can join the secondary.